Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Walaalayaal, waan idin salaamay dhammaantiinna meel kasta oo daafaha dunida ka joogtaan. Waa walaalkeen sheekh cabduraxmaan. Waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala suurad aad iyo aad u qiimo badan. Waa suurad haddii aad akhrido allah subxaanahu wa tacaala uu asturayo ceebahaaga adduun iyo aakhiraba biidni illaahi tacaala. waa mujarab. suuraddaasi walaalayaal, marka lagu leeyahay way asturaysaa ceebahaaga, lambarkoo waa inaad tahay qof ilaahay ka cabsanayo oo is-ilaalinayo. haddii lacalla maalin uun aad yara simbiriraxato suuraddaas aad akhrido biidni illaahi tacaala, ilaahay ceebahaaga waa asturayaa. suuradda akhrinteedana waa inaad akhrido maalin walba biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. suuraddu waa suurad gaaban, suurad dheer maaha, marka waad awoodi kartaa inaad iska akhrido oo wardigaaga maalinlaha aad ku darsato, waad awoodi kartaa waaye. khaasatan dadku isku mid ma aha. dad waxaa jira xoogoo zallaadkoodu fara badan yahay, yacnii inay simbiriraxadaan ay badan tahay ama ay u dhowdahay. dadkaasoo kale aad bay ugu fiican tahay suuraddan inay daa'imaan akhriyaan mar walba si allah subxaanahu wa tacaala u asturo haddii lacalla simbiriraxa ay ka dhacdo. walaalayaal, suuraddu waxa weeye suuratu takwiir. suuraddaas iyadaa weeye, waad akhrinaysaa biidni illaahi tacaala. 7 jeer aad akhrinaysaa haddii aad awooddo, haddii kale 3 jeer aad akhrinaysaa, haddii kale 1 mar maalintii haddaad akhrido way kugu filan tahay. suuraddaasaad akhrinaysaa. dabcan markaad wax akhrinaydana waxaa loo baahan yahay qof daahira inaad tahay, ood weyse qaadato, ood ilaahay xaggiisa u jeedsato. sidaasaa wanaagsan weeye inaad ku akhrido qur-aanka. intaasaan doonaya maanta inaan idinla wadaagsado. waxaan idinka codsanayaa janalka inaad sabskrayb ku samaysaan. war janalkan waxaan ugu talagalay muslimiinta dhammaantooda inay ka faa'iidaystaan intii danaynayso. kaan danaynaynin asaga kuma jiro, laakiin ninkii danaynayo janalkan inuu ka faa'iidaystaan rabaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. walaalayaal, janalka hala sheer gareeyo si dad badan uu u gaaro, si dad badan ay uga faa'iidaystaan. addaalu cala alkhayri ka faacilii baa layidhi. adigu haddaad dadka khayrka tustana, nin kasta oo janalkan ku soo xirmay oo adiga sababkaaga ugu soo xirmay, ajrigiisa ayaa kuu soconaya waay. ajrigiisa ayaad leedahay way od qaadanaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. marka walaalayaal, janalka hala sheergareeyo, hala maaragtaaye hal sabskrayb ha lagu sameeyo, laygtana hala riixo, waayo laygta waa waxa keliya aan idinku leenahay. xuquuqda keliya ayd noo awoodaan waa sheerta iyo laygta iyo sabskraybta. 3daa walaalayaal hanaga iloobina. aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.